mamoydiba ila soo martee miisaan xaqa lama magi karee minika jannada mawlaha ka dhigo mamoy macaan mawlaha ka dhigo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كده حلويو أتكلم سعودين براها بالشدة قناة يوتيوب كا برنامج كولي وحيدين كده إيمانا يا قاهرة مجال مدحت الدلك مصر. برنامج كحنو مالكليه هي أدى قحوتية وقابل سمح برشدة قحوتية كل قندلك مصر CRS تياتا يوم سنتين يا هاي متحكتا وحاربا مانتا داما ku jirno bishii lixaad ee June sida hore idinkaga balan qaaday in aan idin la wadaago fikrado cusub oo ku saabsan sidii aan u horumarin lahayn ama u dhaqan gelin lahayn dharkeena inuu qaska ee loo yaqaano Soomaalida waa dharkayda ay dhaqanka ee loo yaqaano lindiga. maanta waxaan sameysanaynaa summer dress lindigaas quruxda badan leh ee wadankeena loo yaqaano. waxaan ka sameysanaynaa summer dress cambuur ku haboon kulaylaha in la xirto maadaama dadkii caadaysteen inay kaliya xirtaan munaasabadaha sida aroosyada oo kaleeto iyadoo waliba laga siinayo gabadha aroosada ee ama gabdhaha aroosada wehelinaya xoogaa yar gabal yar laga siinayo. sababta gabalka yar loo qaatay ma ogi fashionka bay ku jirtaa ma hadda la dhaqan gelin rabaa ma hore sidaas ay u ahaan jirtay. of course no hore saas ma ahaan jirin. hore alindiga garaara loo xirin jiray garabka laga xirin jiray waa la guntin jiray garab saarkana waa la gabsaarin jiray. maanta garab saarka dhinacaas kaga dhigaynaa garab saarka ma u baahnin kaliya marada u baahanahay haddii ay jirto aqoon dari sida loo sameysanayo cambuur kaamil ah oo alindi ah isku aadiska maadaama dharka uu yahay stripes uu yahay xariijimo uu yahay dadkana hal dariiqad ay u wada toshaan kulligood ama in laga dhigo African dress oo kale loo tolo ama in gabal yar laga soo qaato oo kamid ah fikradaas. waxaa rabaa haddii aad ila garab gashaan inaan bedelno aan idin tuso dariiqadaha ugu sahlan oo loo sameysan karo alindiga gurbaanka la dhahay hadda garabkaaga kuugu jirin gacalka ha ku haayo haddii aad fikrad idinka ay haysanin. haddii aadan haysanin rabaa fikrad sidii si fiican loogu tari lahaa dharka alindiga ee loo habeen lahaa anaa idin haya iga faa'iideysta aniga bilaash ku bartay idinkana bilaash ku qaata seewaay hadal fiican mooho. Soomaaliya ka wada kaca maanta bisheena lagu jiraa bishii June xoriyadii Soomaalida calankii Soomaalida wax walba oo Soomaalida quseeyo ayaa lagu jiraa. marka sidaa hore idinkaga balan qaaday bishaan waxaan sameysanaynaa inteeda badan alindiyan sameysanaynaa kala nooc kala si kala gedisanaa oo xirin kartiin hadday noqoto goono skirt hadday noqoto surwaal hadduu noqdo cardigan hadduu noqdo cambuur kaamil ah mid modern ah mid khadiin ah kulli waa idin hayaa bishaan special for Somali people iyo Somali traditional dress. calankan waa ku xigaa diyaariyo kooda luulio calan ah horey u arkin laga yaabo ayaan soo wada ila socda hadday noqoto dharka wiilasha shaararka hadday noqoto dharka gabdhaha cambuurada qofkii rabo pre-plan waa sameysan karaa waa ila soo xiriiri karaa channelkayga dhaxal hooyo hoos iyo messenger ama gruubyada iga soo raac because fixshona telefonkayga horteena meesha ku soo qoro laakiin haddii talabka uu bato yes waa ku soo qori doonaa haddii aad ka heshid fariin hoos iyo reeb si aad inka badan u heshid adigoo si fiican oo yani ay ku jirto kulli elegance yani anaaqa ay ku jirto ama qurux ku metel dalkaaga dadkaaga iyo diintaadaba. saa hore idinku sheegay mashruuca inaan dhaqan geliyo waxaa u baahanahay of course dharkii horta aan ka sameyn lahaa mashruuca markaas ii taagan aan rabo iyo maqaska ku gogoon lahaa mitirkii maskaradii qalinkii aan ku calaameyn lahaa maskaradii dheereed aan lugaha yani min lugaha ilaa iyo hoos aan ku sii sameyn lahaa. soo waxaan ku bilaabeynaa bismillaah magaca ilaahay aan ku bilaabeynaa qiyaasteennana waa wada heesanaa qof kastaba qiyaastiisa loogu sameynayaa inta markaa uu maaragtay uu size-kiisu yahay insha Allah biidhnillaahi alkariim ayaan
focus garayn doonaa because size la-aan waxba lama sameyn karo inkastoo medium small uu ka bilaabanayo dharka medium xx large 3x large 4x large qofba intuu xajmigiisa leegahay haddana mar walba waxaa jeclahay qiyaasta qofka aan dharka u sameynayo inaan haysto ama qofka aan dharka xitaa u sameynayo uu maaragtay uu ii dhow yahay si markaa qiyaas fiican aan u helo saa hore idinkugu sheegay mar walba waxaan sameysanaynaa 20 garbaha ah yani waa medium size waa kan 20 garbaha sameysanaynaa 3 qayb oo qaybinaynaa waxaan sameynaynaa garbaha hoostooda oo 20 waxaan sameynaynaa haddii ilaahay karaal noqdo dhexdii haddana oo 20 min dhexda ilaa iyo hiibska wixii kasii dambeeyo oo iyadana ah 20 marka hore dharkaaga intaadan maaragtay guurin ama maqaska aad ku boobin ama qiyaas hawaa'i aad ku sameynin waxaa ku fiican in aad maaragtay si rasmi ah aad u calaameysatid inta aad u baahan tahay iyo inta mar walbaba markaa waraaq aad ku samaysid ama marka hore aad ku baratid dharka duuga ee guriga ku yaalo Soomaali haddaan ahay baati ma naga dhamaado laakiin baatiyada duuga ku barbaro sidii aad wax u samaysan lahayd chest waist hips 3 qayb haysta 3 qayb markii laga gudbo dresska arao maanta insha Allah biidnillah karim inaan sameeyo waa so simple waa summer dress dadka dhan ee wada yaqaanaan kulli turuq waa idin tusinaya guriga markaa ku joogsidii banaanka markaa la bixisid bo labo yani sida isticmaal lahayd idin tusinaya dhexda waxaa dhahnay 28 waaye يعني قربها إيه واحد مركا مارة 32 oo senti oo lagu talaayo waa 30 calaamaysanayna garbaha hoostooda kilkilaha meesha ku soo aadaysa ama ay fahmi kartiin kilkilaha maxaa ku xigo waa su'aasha waa ogtiin qof kasta bini aadam waa ogyahay kilkilaha waxay ku aadan yihiin dhexda ku soo hartay waa 28 waaye hibiska maasha Allah way dhaqan tahay abaayada waxaa waay 30 iyo 5 waay hibiska sasa xisaabinayna okay mastarada soo qaadanayna mastarada markaan soo qaadno waa isku aadinaynaa xariijimihiisi ee noogu soo baxdo ladies shape wax loo yaqaan shape yani jirnaageed oo kaleeto ما شاء الله إنك استوقلوا قيلاه وكل جديد سنة قفروا وينه هاي قف جدال وينه هاي هذانه واللي يدبق لحظة ما شاء الله سبحانه من قلق قيلها عرفته قبله صوماليات ويكلم بحسين أقنع إسكالرين عمبور إسكوديس مرول بحيرين إني عمبور كل حيرن مركز تحيرو عقو زهرة جماعة محلها gacmaha calaamaysanayna gacmaha waxa haystaa baash lagu calaameeyay horta mastarad lagu calaameeyay waa haya laakiin sasa waa calaamaysanay marka adiga arag maskaxda inaad ka samaysatid 2 cm meeshaan aad gelisa meesha saad half oo soo baxay angle sameeyay laakiin kan angle ma aha kan waxa rabaa ambur oo summer dress oo maaragtay يعني alaabta iskala reebka adiga Soomaaliga aniga way weeriyahay maclishkooda laakiin 10 cm kilkila hoostooda ugu bixina angle yara ka sameeynayna marka cashan soo ahaado wax saani uu ahaado maxaa ku soo haray qorta ku soo hartay qorta cadadan 10 cm waaye 10 cm calaameynayna 10 cm meesha waaye 10 cm calaameynayna 10 cm marka calaameyno v neck sameeynayna waxa la dhahay v neck v af Soomaaliga ma ku jirnaa يا ملك قرنت بي مارك شو محن سمينا كان هذانه واسكو صلينا واسسو غارسينينا هل حبه كنا خاصه
sorry meeshaan waxaa ku haysataa qaybta kore oo horaadada ku haysataa okay meeshaan garbaha 5 centimeter ka dhigana علشان قرب عريض عرفنا مو سو مركا سسونا قنايا بيل أنسمينا بيل عشان قعنتا يتسوق جليسو انت سوسلفها هنا هم لينا يا معكو سهري intaan yani dhexda ilaa lugaha hadhow mastaradan dheeran ku calaameynayna jeedin wax micnee malaha laakiin mar walba horta upper part burka kor in la oo maaragtay oo laga adjustare u baahan yahay yani in kor saani laga dhigo mar walba u baahan yahay intaas markaa mareyno sasayno noqoto iyo kadambo dhexda iyo waxaan kala reebaynaa iyo maxal qaarka dambe saakada iyo waxaan kala reebaynaa iyo qaarka hore iyo qaarka dambe markaa kala reebno meesha saamareyno ayaa waxaan sameyneynaa princess cut intana ka sameyneynaa princess cut markaan sameyneyno waxaan sameyneynaa horta garabka 20 waaye 20 kaas soo qabanayna waa kala reebaynaa waxaan ka dhigaynaa 10 calaameynayna oo dhexda isku garabkeena hadda meeqa waaye oo too much too big waa laakiin all in all tulina inta galaayo wax micnee ma lahan wax ka dhigaynaa soo kala bixinaynaa ishaan waxaa rabnaa in maaragtay meeshaana ku soo hartay hoose waxaa sameynaynaa 10 cm gudaha usoo gelinaa oo meeshaas ku aadan korna saas 10 cm aan calaameynayna عشان waxaa rabnaa princess cut oo maaragtay qurux badan inaan sameyno meeshana ku soo hartay 5 centimeter ka qaadayna aan calaameynayna hadhow saasaan leenahay isku geynayna kanne baa ka sameynaynaa angle aan ka sameynaynaa yani min kor ilaa iyo hoos angle ka sameynaynaa angle-ka haddaan rabna saas waa u sameyn karnaa qaabdaradaas laakiin waxaa xaawilaynaa inaan perfect ka dhigno yani angle qurux badan aan ka sameynaynaa saasaan u jareynaa maxaa ku soo haray gacantii kor line ka soo baxeena ayadana ilaa line kana ku keenayna saasaan leenahay so marka hadda waxaa haysanaa normal princess cut haysanaa oo yani hadhow markaa xiratid wuxuu ku siinayaa shape qurux badan oo shape gabdheed ku siinayo dadka qaarna waxay u sameeyaan meeshana saani ka dhigaan oo saani loogu dhigaa kadibna meeshaan angle ka sameeyaan laakiin taas sax ma ahana u maleynayaa oo shape oo normal shape ma ku siinayo so aska waan jaraynaa askan suurikii waraaqa loogu talagalay ma aha waxaa yeelay kiya soo galay ninkan marka lagu soo balamiyaa leedahay marka istiraahid wax samayso asna mikrofoonkiisu soo qaadan yaa ku qabso ku qaadmaysa yaa badi yaa markaasaan aan leenahay so markii oo la kor saar la isku jaro saasuu very beautiful princess kala ku soo baxay oo markii inta meeshaan ay isku imaado kor shay buu yeelanayaa oo maaragtay gabar camal masha Allah saa ujeedin horta saasaa u dhigay marada marka waxaa waaye markaan aan sameynayno goonada cambuurka horta aan marada si aan ugu qasaarin aan ka bilaabaynaa goonada
marka goonada waa taas 100 waa dhererkeeda meeshaas ilaa iyo hoos 100 looga baahan yahay meela ka arkaysiin idin geynaya yes marka 100 loo baahan yahay 100 marka inta ka bilaabo ilaa iyo wixii noqonaysaa iyo halkan 100 meeshan aan aanaysanaya meesha saalameysanaya 100 ay tahay maxaa ku soo haray dhexda 30 ay ahayd 30ka waxa ku dareynaa 10 ku dareynaa waxaan noqonayaa 40 kaas ka reebanayna wixii 40 maaragtay ka badan iska jareynaa fitilkana exactly meesha calaamiyay baan okay inta saab aan maaragtay aan ka reebeyno biki amaad hadana suuqa xir inta markaa marayno waxaan sameynaynaa intaan aan jareynaa si ay maaragtay u noqoto goona caadi ah oo soo jareynaa maasha Allah sasa u jareynaa goonada ujeedin waxaan siinaynaa round shape oo hoos maaragtay عشان inay noqoto clutch normal ah clutch normal ah say ugu dhigaysaa 2 senti maaragtay meeshan laashi oo ugu bixisa hoos daraf laabtaan iyo waxa loo baahan marka 2 senti ay joogtada inta ka baxay marba qofka xiranayo ku xiran tahay saa marka ujeedin waxay noqonaysaa clutch عادي نقنيسا يعني قونا لو تلقى إني بالا أحاتين نقنيسا okay ماشي المركا مرينا و okay so far so good قونا بنجار سنتهاي ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت مركا مرينا وحاسو كان وحبد كواي برانسيس كذا وسمينه مركا حبد كان جرينا same shape يعني waxaan saareynaa on kaliya warqada oo kurgoonina kadibna waa soo tuleynaa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal noqdo kadibna waa arkaysiin sidoo ku soo baxo dharka wadankiina laga xirto ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عمرك ما انتهى وطلقلي دحل هويه idin soo diyaarisay saan hore idinkaga balan qaadayba ku saleysnaa dharkayda dhaqanka Soomaalida ay leeyihiin in loo sameysan karo cambuur goono suwaal wixii aragtaa ka tulan kartid isla mar ahaantaasna magaalada aad ku mari kartid very comfortable adigoo dharkiis intaas u jiraa maaragtay baliciisa lugaha waa ka wax ku dabraay ma leh cambuur khafiif ah waaye dharka alindi waa wada taqaanin waa dhar khafiif ah kuleelaha aad iyo aad ugu haboon ku qurux badan marbisa utulitidu ku soo saaraya saa u jeedin cambuurdan waxa la xirin jiray 60 meeydi 50 meeydi 70 meeydi xiligi Talyaaniga uu gumaysan jiray Soomaaliya dadkeena waaweyn ayay yalkeen iyo hooyooyinkeena og inta uu maaragtay xiisa lahayn jiray designada sidaan oo kale waa all the vintage marka waa kana ilaa grey share grey commentiga iga baqaylina asxaabihiina la wadaaga ehelka arxibada qofka ay jeceshiin guriga ku jooga jaamacada ku aad wax alla xarabtiin ku sameeya waa ka idin macnaato maalinta insha Allah waa baad dhaxal hooyo idin leh qalbiga idin ka salaamayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh